بسم الله الرحمن الرحيم جمعة وناكسن وأفر يلباتن كبشة جولاي سنة لبكن لباتن يلح أو كوبهجن طبعا كبشة سفر سنة كن أفر بقول أفرتن يسديد تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامجكي xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waa Iran oo soo bandhigtay sawaariikh hor leh xilli dagaalka kala dhaxeeya Mareykanka uu ku dhow yahay 2 toddobaad ciidamada ilaalada kacaanka Iran iyo taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka oo ka warbixiyay weeraro ay isweydaarsadeen xalay iyo saakay waa barigii Iran oo ku gacan sayrtay hindisan nabadeed oo dagaalka lagu joojinayo oo Mareykanku u soo dhiibay ra'iisul wasaaraha Ciraaq iyadoo dagaalku laga cabsi qabo inuu ballaarto isla markaasna Trump uu ku goodiyay inuu burburin doono kaabayaasha rayidka ee Iran waxaa soo baxay war sheegaya in ciidamada Iran ay diyaariyeen qorshe ay ku weerarayaan Israa'iil mid ka mid ah wadamada reer Yurub ee NATO ka mid ah oo maraakiibtiisii kala cararay badda cas kadib markii ay soo cusboonaatay xiisadda aagaasi xuutiyiinta Yaman oo si adag uga jawaabay hanjabaado uga yimid Donald Trump iska horimaad hubaysan oo sababay dhimashada iyo dhaawaca Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty oo ku baaqday in la xiro Netanyahu iyadoo la fulinayo amarka maxkamadda ICC dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo dhaca intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada warar soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka waxaanu imaan doonaa xaaladaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe iyo xalay oo laysu galgashay iyadoo lagu soo waramayo Iran inay daakun ka dhigtay saldhigyo fara badan oo Mareykanku uu ku leeyahay gobolka bariga dhexe iyo Iran qudeeda oo lagu qaaday duqeymo aad u culus laakiin waxaynu ku hormaraynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dhanka badda cas halkaasi oo xuutiyiintu ay ka wadaan weerar ka dhana maraakiibta Sacuudiga wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee maamulka xuutiyiinta Cabdulwaahid Abu Raas ayaa farta ku fiiqay in hadallada Trump ee ku saabsan mowqifka Yaman ee lagaga soo horjeedo go'doominta Sacuudiga ee Yaman ay caddayn u yihiin sida uu yiri ku lug lahaanshihiisa dambiga si wadista go'doomista sidaasi waxaa warisay wakaaladda wararka Saaba ee Yaman laga leeyahay Abu Raas oo ka jawaabaya hadallada Trump ayaa waxa uu yiri xigasho haddii dambiile Trump uu doonayo inuu ku celiyo waayo aragnimadiisii fashilantay ee Yaman ciidamada qalabka sida ee Yaman ayaa sugaya wasiir ku-xigeenku wuxuu sheegay in go'aankooda uu yahay in go'doomin lagu bedelo go'doomin waxaana uu yiri xigasho qof walba ha helo xorriyad madax banaani iyo ka faa'iideysiga khayraadkiisa qaran haddii kale isla xisaabtanka lagu dhawaaqay ee cadowga Sacuudiga ayaynu ku dhaqmaynaa waxa uu sheegay in cid kasta oo doonaysa inay faraha la soo gasho arrimaha Sacuudiga ay ugu kici doonto qiimo culus oo ka dhasha go'aankeeda khaldan isagoo carabka ku adkeeyay in ay ku dhaqmayaan xuquuq sharci ah oo ay damaanad qaadayaan dhammaan xeerarka shuruucda iyo ahdiyada Abu Raas ayaa digniin u diray dhammaan wadamada caalamka isagoo uga digay inay ka fogaadaan dekadaha Sacuudiga ilaa iyo amar dambe isagoo ku tilmaamay arrintan ogeysiis muhiim ah oo ku socda dhammaanba shirkadaha maraakiibta dunida habeennimadii xalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay in ay la kulmi doonaan
وسيد الكويري عقاب ميلتري أو وين إيران iyo Xuutiyiinta haddii mar kale ay beegsadaan maraakiibta isku dayaya inay ka gudbaan marinka Bab-el-Mandab oo ah marin istiraatiiji ah oo isku xira badda cas gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ilaa wareedin rasmi ah oo laga helayo dhanka Sacuudiga ayaa sheegaya in hay-adda guud ee gaadiidka Sacuudigu ay Khamiistii xaqiijisay in markabka Enselia oo ay leedahay shirkad Sacuudiya lagu beegsaday badda cas waxaana ka dhashay dab weyn weerarkaasi iyadoo la sheegayo in qaybta hore ee markabka waxyeello ay soo gaartay waa hagaag haddaba iyadoo arrintan ay taagan tahay isla markaasna Xuutigu wacad ay ku mareen in badda Bab-el-Mandab oo dhanba ay xiri doonaan iyo marinkaasi ayaa hadda waxaa soo baxay war sheegaya in Jarmalku uu kala tegayo ama ka wadanayo badda cas maraakiib dagaal oo u joogtay arrintan waxay la xiriirtaa xiisadda imika taagan wasaaradda gaashaandhigga ee waddanka Jarmalka ayaa daboolka ka qaaday in maalmaha soo socda ay kala bixin doonto 2 markab oo ay leeyihiin oo ku sugan badda cas iyadoo loo wareejinayo badda Mediterranean-ka afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Jarmalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in markabka miinasaarista ee Fuyulda iyo markabka kale ee Muselle ay haatan ku sugan yihiin dalka Djibouti labada markab ayaa bishii hore loo diray gobolkaas si ay uga qayb qaataan howlgal la qorsheeyay oo ahaa in miinooyinka looga saaro marinka Hormuz kadib dhamaadkii dagaalka Iiraan iyo Mareykanka u dhaxeeya laakiin xilligaasi Iiraan ayaa u digtay wadamada reer Yurub oo Jarmalku uu ka mid yahay isla markaasna sheegtay in hawshaasi aysan ahayn mid iyaga u taal wasaaradda arrimaha gaashaandhigga ee Jarmalku waxay sheegtay in go'aanka dib loogu wareejinayo maraakiibta oo salka ku hayo xaaladda siyaasadeed ee aan deganayn iyo maqnaanshaha howlgal dhow oo laga fuliyo marinka Hormuz waxa intaasi ay ku dartay in ku sii haynta maraakiibta muddo aan cayimnayn ay halkaasi ku tahay nidaamyadooda farsamada balse ay diyaar u ahaan doonaan in mar kale dib loogu diro maraakiibtaasi gobolka haddii arrintu ay noqoto mid kalsooni laga qabo dhanka ammaanka isla markaasna howlgalkaasi miinasaarista uu noqdaa mid dhow marka laga tago warkan ka soo baxay wasaaradda waxaa aad loo aaminsan yahay arrinta inay salka ku hayso weerarada Xuutiyiinta Jarmalka marka wuxuu leeyahay haddii howlgalka midowga Yurub ee asbidaas la yiraahdo oo maraakiibta galbiya iyo isku dhacaan Xuutiga markaas waxa dhici karta markab kasta ha noqdo mid ganacsi iyo mid dagaal inay beegsadaan marka waxay leeyihiin sidan ayaa badbaadada ku jirta waa inaan kala baxnaa maraakiibteena halkaasi waa hagaag warkaasna inta aynu kaga gudubno waxaan idin soo gudbin doonaa oo gorna u gudbaynaa war la xiriira toogasho ka dhacday daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo dagaal toos ah ku dhex maray Falastiiniyiin iyo Israa'iiliin dhimasho dhaawac ayaa la soo warinaya laakiin waxaynu haatan eegaynaa war ka soo baxay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty kaas oo lagu dalbanayo in la xiro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isla markaasna la horkeeno maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC Erika Guevara Roses oo ah agaasimaha sare ee cilmi baarista difaaca xuquuqda aadanaha siyaasadda iyo ololayaasha ee Amnesty International ayaa sheegtay in Netanyahu ay tahay in uu wajaho cadaalad caalami ah Roses ayaa taageertay hadallo horey u jeediyay duqa magaalada New York Zohran Mamdani kaas oo sheegaya in Netanyahu la xiri doono haddii uu booqdo magaalada New York inkastoo Mamdani go'aankaasi uu ka laabtay kadib markii uu sheegay inaysan jirin tilaabo qaanuuni ah oo u ogolaanaysa maamulkiisa inay ku xiraan Netanyahu New York haddii uu yimaado bisha September mas'uuliyadda Mareykanku waa inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaasna ixtiraamaan ku dhaqanka sharciga ayay Roses ku qortay baraha bulshada maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC ayaa
sanadkii 2024 waxay soo saartay amar lagu soo xirayo Benjamin Netanyahu iyadoo ku eedeysay inuu galay dambiye dagaal intii uu socday dagaalka Israa'iil ay ka wada bariga Gaza kaas oo hay'ado badan oo caalami ah ku tilmaameen xasuuq. Amnesty International ayaa marar badan ugu baaqday beesha caalamka inay taageeraan fulinta go'aanada maxkamadda ICC isla markaasna la hubiyo in cid kasta oo lagu eedeeyo dambiye dagaal ay wajahdo cadaaladda. وهاجاga warkaasna intaas aynu kaga gudubno markan waxaynu eegaynaa war degdeg ah oo hadda ka soo baxaya dhanka daanta galbeed ee la haysto halkaasi oo la sheegayo isku horimaadiyo inay ka dhaceen ugu yaraan hal qof oo Israa'iiliya ayaa la dilay laba kalena waa lagu dhacwacay kadib markii isku horimaad uu dhex maray Falastiiniyiin iyo Israa'iiliyiin waxaana la sheegayaa in isku horimaadku ka dhacay magaalada la yiraahdo Tal ee gobolka ama ka tirsan Nablus halkaasi oo Israa'iiliinta ay u yaqaanaan Hafad Gilad. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa iyaguna waxay xaqiijiyeen in 4 Falastiiniyiin ah ay dhinteen 4 kalena ay ku dhaawacmeen isku horimaadkaasi. waxaana warkan haatan soo baxaya uu sheegaya in ciidamada Israa'iil ay hareereeyeen goobtaasi isku horimaadka uu ka dhacay. waa hagaag wixii ku soo kordha warkan intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. waa hagaag waxaan u gudbaynaa goordhow wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha colaadeed ee gobolka bariga dhexe gaar ahaan isku horimaadida u dhaxeeya Iiraan iyo Mareykanka. Iiraan oo hub hor leh soo bandhigtay isla markaasna diiday gebi ahaanba xabajoojin Trump uu soo jeediyey inkastoo dhanka kalena Trump uu hanjabayo. waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey iyo warar intaynu barnaamijka ku jirnay soo dhacay intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaas iyo kuwa kale aynu ku hakanno. waa hagaag xaaladda bariga dhexe waa bariga dhexe dagaalku caawa wuxuu gelayaa habeenkii 14aad macnaheedu waxa weeye 2 toddobaad oo isku horimaadii ayaa socda. ma muuqata Iiraan in ay samaynayso sida Trump uu doonayo iyagiiba hadda waxay diidan yihiinba xabajoojinta Trump uu soo bandhigayo waxaana la sheegayaa in ay Israa'iil laga yaabo in lagu qaado weeraro sida warbaahinta ay sheegayso. intaan u gudbin macluumaadada xasaasiga waxaynu ku hormaraynaa ciidanka Iiraan iyo duqeymihii ugu dambeeyey ee ay qaadeen iyo goobaha ay beegsadeen. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa daboolka ka qaaday in ay fuliyeen mawjad cusub oo weerar ah oo loo adeegsaday dayuuradaha aan duuriyaha lahayn kuwaasi oo lagu beegsaday saldhigyo ciidan oo Mareykanku uu ku leeyahay wadamada Bahrain iyo Jordan. war-saxaafadeed ay baahisay wakaaladda wararka Maahir ee Iiraan laga leeyahay ayaa lagu sheegay in ciidamada Iiraan ay drones ku beegsadeen haamaha kaydka shidaalka baqaarada qalabka iyo goobaha ay degan yihiin ciidamada ee saldhigga ciidamada cirka ee Sheikh Ciise ee ku yaala dalka Bahrain. ciidamada Iiraan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay weerareen hangarada diyaaradaha xarumaha dayactirka iyo goobaha hoyga u ah ciidamada ee saldhigga Muwaafaq Salte oo loo yaqaan Al Azraq ee ku yaala dalka Urdun. waxaa intaasi ay ku dareen in tilaabo kasta oo ka dhana danaha Iiraan ay wiiqi doonto amniga gobolka iyo xasiloonida dhaqaalaha. dhanka kale taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka ee magaalada Kahnooj ee gobolka Kerman ee koonfurta bari ee Iiraan ayaa xaqiijiyey in hawada ay ku burburiyeen gantaal nooca Tomahawk ah oo Mareykanku uu ku soo ganay magaaladaasi. war kale oo culus oo Iiraan ka soo baxay. warbaahinta Iiraan ayaa xalay baahisay in ciidamada qalabka sida ee Iiraan ay fagaaraha Azadi ee magaalada Tehran ay ku soo bandhigeen gantaal nooca plastic ah oo ah Zulfiqar xilli halkaasi uu ka socday isu soo bax ballaaran. sida wararku sheegayaan gantaalka Zulfiqar ayaa ka mid ah hubka xeeladaysan ee saxda ah ee ciidamada cirka ee IRGC wuxuuna gaari karaa masaafo 700 oo kiiloomitir ah. wakaaladda wararka Faris ayaa warisay in taliyaha ciidamada cirka ee IRGC uu horay u sheegay in gantaalkan loo adeegsaday intii lagu jiray
dagaalkii socday 40 maalmood iyo weeraradii gantaalada ee lagu qaaday saldhigyada Mareykanka uu leeyahay. wakaaladdu waxay sheegtay in gantaalka Zulfiqar uu yahay gantaal ballistic ah oo ku shaqeeya shidaal adag, isla markaasna madaxa qaraxa ku xiran culayskiisa uu dhan yahay 500 oo kilogram. waxaa lagu tilmaamay gantaal xeeladaysan oo ka mid ah gantaalada ridada gaaban ee ciidamada Iiraan, waxaana markii ugu horeysay la soo bandhigay sanadkii 2016. sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in gantaalkani uu adeegsado nidaam hagitaan casri ah oo loogu talagalay in uu si sax ah u beegsado bartilmaameedyada la cayimay, isla markaasna awood uu u leeyahay inuu duqeeyo xarumaha talisyada, saldhigyada militariga, marinada muhiimka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee xasaasiga ah. waxaa kaloo la sheegay in gantaalku uu leeyahay madaxa qarxa oo laga goyn karo qaybaha kale, isla markaasna lagu rakibi karo noocyo kale oo kala duwan oo madaxyo qarxa ah, kuwaasi oo loogu talagalay burburinta taangiyada, dhufaysyada iyo bartilmaameedyo kale. dhinaca kale, 2 sarkaal oo Iiraaniyiin ah ayaa waxaa wargeyska The New York Times uu ka soo xigtay in marxaladda xigta ee colaadda u dhaxaysa Washington iyo Tehran ay isku bedeli karto in Iiraan ay weerarto magaalada Tel Aviv. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in haddii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fuliyo hanjabaadihiisa ku aadan weerar lagu qaado Tehran iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee Iiraan, in markaa Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay ku jawaabi doonto weerar ballaaran oo ay ku ekayso Tel Aviv, isla markaasna Xuutiyiinta Yemen ka codsan doonto in ay xanibaad ku soo rogaan badda marinbiyoodka Bab el-Mandab. wargeysku waxa uu xusay in marxaladdii ugu horeysay ee dagaalka oo bilowday 28 February ciidamada Israa'iil ay ka qayb qaateen weeraradii lagu qaaday Iiraan, halka Tehran ay boqolaal gantaalo ballistic ah ku garaacday Israa'iil. hase yeeshee Israa'iil kama aysan qayb qaadan wareegan cusub ee dagaalka. Iiraanna ma aysan weerarin Israa'iil toddobaadyadii la soo dhaafay. warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in Iiraan ay diiday hindise xabad joojin ah oo Mareykanku u gudbiyey iyadoo la marsiinayo dhexdhexaadiyaal Ciraaqiyiin ah, sida uu qoray wargeyska The New York Times isagoo soo xiganaya saraakiil Iiraaniyiin iyo Ciraaqiyiin ah. ra'iisul wasaaraha Ciraaq Ali al-Zaidi oo shalay booqday Iiraan ayaa waxaa la sheegayaa in uu u gudbiyey Iiraaniyiinta soo jeedin xabad joojin oo ka timid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo al-Zaidi uu kala kulmay aqalka cad dhowaan. si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Iiraan ayaa wargeyska u sheegay inaysan danaynayn heshiis ku meel gaar ah oo aan wax ka qaban xaaladda kama dambaysta ah ee marinbiyoodka Hormuz oo ah qodobka ugu weyn ee lagu muransan yahay wadaxaajoodyada. xafiiska ra'iisul wasaaraha Ciraaq Ali al-Zaidi ayaa sheegay in booqashadiisa Tehran ay ujeedadu ahayd baaq nabadeed iyo dhiirigelinta wadahadalka, isagoo sidoo kale ballan qaaday inaan dhulka Ciraaq loo adeegsan doonin weerar ka dhan ah Iiraan. dhanka Mareykanka, militariga Mareykanka ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay ay fuliyeen weerar lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala gudaha Iiraan, kuwaasi oo noqday habeenkii 13aad oo xiriir ah oo Mareykanku weerar uu ku hayo dalkaasi Iiraan. taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa sheegay in weeraradii ugu dambeeyey ay socdeen in ka badan 2 saacadood, isla markaasna la soo afjaray wax ka yar 5 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee saaka. qoraal uu soo saaray CENTCOM ayaa lagu sheegay in weerarada loogu talagalay waa sida hadalka loo yiriya in lagu weeqo awoodda Iiraan ay ku halis gelin karto maraakiibta rayidka iyo kuwa ganacsiga ee gooshaya biyaha gobolka, iyadoo Mareykankuna dadaal ugu jiro in uu dib ula wareego gacan ku haynta marinbiyoodka Hormuz, isla markaasna dib loo soo celiyo isu socodka maraakiibta caalamiga ah. CENTCOM ayaa waxa intaasi ay ku dareen in la weeraray xarumaha taliska ciidamada Iiraan, goobaha lagu kaydiyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska, shabakadaha isgaarsiinta, xarumaha kormeerka xeebaha iyo awoodda badda ee Iiraan. dhanka kale,
warbaahinta dowladda Iiraan ayaa sheegtay in qaraxyo isdaba jooga xalay laga maqlay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka kadib markii Mareykanku uu ku dhawaaqay in uu bilaabay weeraradiisii ugu dambeeyay. warbaahinta Iiraan ayaa warisay in gantaalada Mareykanku ay ku dhaceen magaalada Ahvaz ee koonfurta galbeed ee dalkaasi, iyadoo sidoo kale qaraxyo laga maqlay magaalada Umadiyah ee ku dhow Ahvaz, magaalada dekada leh ee Bandar Abbas iyo jasiiradda Qisham ee ku taal marin biyoodka Hormuz. wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA ayaa waxay daabacday in 4 qof ay ku dhinteen 7 kalena ay ku dhaawacmeen weerar Mareykanku uu ka fuliyay 5 gobol oo ku yaala waddanka Iiraan. dhanka suuqyada caalamka iyo saameynta dagaalka, qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay iyadoo $100 ay dhaaftay fuustada shidaalka qeyrin markii ugu horeysay muddo 2 bilood ah kadib markii xuutiyiinta Yaman ay ku dhawaaqeen inay beegsadeen 2 markab oo shidaal oo Sacuudigu uu leeyahay. wahagaag markan waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadahan colaadeed iyo war hadda soo dhacay. dalka Bahrain waxaa la sheegayaa seeriga digniinta ka bixiya gantaalada in laga maqlay iyadoo shacabkana digniin lagu siiyay inay galaan goobaha gabaadka kadib markii la sheegay in hawada waddankaasi ay soo galeen gantaalo iyo diyaaradaha droniska. wadamada khaliijka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxay wajahayaan weerar xooggan iyadoo Iiraan iyo Mareykanku ay isdhaafsanayaan weeraro iyo duqeymo, waxaana la sheegayaa in isku horimaadidu ay ahaayeen kuwa xooggan habeennimadii xalay, iyadoo dhinaca kalena ay soo baxayaan macluumaadyo kala duwan oo la xiriira in waddanka Jordan weeraro kale lagu qaaday. waa tahay macluumaadkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka. wixii warar ee soo kordha barnaamijka wararka maanta oo goordhow soo geli doona ama saacada kadib ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo. waad ku mahadsantihiin daawadayaal daawashada barnaamijka. si aad ula socoto wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinno, haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir. waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.